أنا قويل كين ما إهنين دقنا أو دتكي سود أنت لقى لالوش ما هنجي ما إهنين إيشك دتكي سود لدلي لو خرج جس ما هنجي نلا يقانا هاي وحنا قبلك كرنا وحيا بس تمان لكن مرة أنا ميت كسيد على أنكر حجوده فرنت لينك هذا كل ما لا يسيد عليه جود اللي سجريد لا عندنا برسم ملاين ده مكتيس اللي إن دولة يبحثه أي نبي سوق ده بحثه ما دام أنا ما كاسو أمريكان كيلا شغال نبي سوق ده أي كو أبتر صار إسرائيل كده على ماشاس إيه حبضة بدنا ولا سكول فري لا أبغى سوق على يقولنت isbitaalka Turkiga ee u gaarka ah ragga waxa ka howlgala dhaqaatiir ajaanib ah kuwaas oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca taranka ragga iyo dhalmo-la'aanta ragga dhakhtarka ayaa ka daaweyn doona cudurrada ku dhaca haniyaha iyo xanuun walba oo aad ka dareentid qanjirka borostatada ragga biyo-baxa degdega ah hamiirida ragga iyo shahwada ragga oo daciifta soo booqo isbitaalka ku yaala xaafadda Taleex ama nagala soo xiriir nambarka shaashada ku qoran سيد علي waxuu dhintay waxaad ogtihiin 28 bishii dhamaatay wuxuu dhaawacmay 28 bishii hore waxaana dhintay kowdii bish maantana waa 8 bish hadda aan ku jirno oo May intaas dhimashadiisa inta ka dambeysay dhaawiciisa inta maalinka uu dhaawacmay inta ka dhacaysana inta wax garato ee Siid Cali xanuuniyay ee qaranka Soomaaliyeed ugu horeeyay horta Siid Cali waxaad ogaatay nin qaran u ahay anagu waa naga dhashay oo wiilkiina u ahay naga xildhibaankiisa qaaska ahaan ahay laakiin Siid Cali qaranka Soomaaliya ayuu ka dhintay ilaahay ha u naxariistaa leenahay nin geesiya aad ogtihiin wuxuu howlgallada dagaalka oo ku qaaday qawaaridta iyo hogaaminta oo sameeyay wax la taaba karo oo baraha bulshadana yaallo duuban oo taariikh oo ka tagay Siid Cali waa u gashay tuutaa inuu dalka ku dhinto oo asoo wadankiisa ka difaacay cadawga oo dhinto waa ku tashanay waan u taagnay waxa intaas aan u taagnay waxay lama yaaban waana nagala dhima jiray waana nagala dhimaha dadkaynu waa dhimahayaan dadna inta biriga 5 qof 6 qof naga dhimataan ka tagi jirta laakiin waxa Siid Cali meedkiisa intaas banaanka loogu hayro markaan aan sheego Siid Cali wuxuu ahaa sargaala magaalada Muqdisho iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan dadkiisa kulli cid aan soo bixin lama arko banaanbax ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho banaanbaxaas oo anaga xildhibaanada aan la hogaamiyay maamulka gobolka Banaadir iyo saraakiisha ciidamada qalabka sido iyo cid kasta ay ka soo qayb gashay madaxda qaranka oo madaxweynaha ugu horeeyay ayuu gaaray wararkiisa si dhaba in loo baaro ayaa lagu heshiiyay waxaa loo xil saaray saraakiil oo ugu horeeyo taliyaha nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalulshe baaristaas ayaan ku jirnay ilaa maalintii uu dhintay oo bisha kowdeed ilaa hadda ninna ma nasanin habeen hore waaga isku kay agbari habeenka ka horreeyay sidoo kale intaas waxay raadinayeen inuu cadaalad helo furunta leeyka haduu ku dhimalay Siid Cali godaal Sagrid la cidna warsan malayn godaal Sagrid la waan u diyaarsanay inuu ku dhinto sababtu walaalihiisa dhimanayeen garabkiisa dhimanayeen intee sargaalo ku dhimato laga soo kaca asigu waa ka duunay waa ka xanuun badaneed in ciidanka qaranka dhexdiisa wiilkii sargaalkayni wiilkayni oo dilo aadaan ugu xumaanay arintaas baaristeedu waxay ku soo dhamaatay in aana Siid Cali si kama inuu ku dhintay oo la jirin shakhsi inta soo muraad Siid Cali xabad ku dhiftay in cid asaga soo qorshayso qorshahan laakiin malakameedka naftigiisa Ilaahay wuxuu yiri adoomadii wadaal sababaan u yeela sababtiisi waxa meesha loo yimid inay hada laga yaaba ciidamada qaranka oo ayagu baaray cadow risaas dhacday asoo soo baxay jidkii yool sareeha soo galay xabad kula dhacdo u dhintay kuma dhiman Siid Cali niman soo baabuur wato meel inta ku arkeen hubiyeen markay hubiyeen kadib inuu yahay markay arkeen xabad ku hujiye kuma dhiman in isaga xabad ku dhiftay oo macnaha inta la soo maray kuma dhiman wuxuu ku dhintay dadka Soomaaliyeed inta badan waa yaqaaneen dagaalada magaalada Muqdisho ka dhacay waa yaqaan wuxuu ku dhintay isrisaasayn xabad isku dhacayo asaga aan loogu talagelin oo meesha inuu joogo in kala xatay aan war laga hayn markii la baaray taas waxay keentay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka taliyahoodii inuu qaato Siid Cali qaabka loo xalin lahaa qaabkaas soo noqday in diga laga qaato Siid Cali 30 iyo qofood koox ay ahayn nimankaas koox marka si loo aruuriyo loo maxkamadeeyna male howlgalayna ku jireen rag kalena hoos tagaanay la shaqeeyaan marka kooxdaas waxaa la isla gaaro la isla gartay arinta markii la qaadaa dhigay Siid Cali in ii sheeg xaqiisi magtiisi in dawladda ay bixiso ay nabad sugidda bixiso maadaama nimankaas Ameerikaanka ay la shaqeeyaan nabad sugiddana ay ku abtirsadaan saas darteed diyaal lama wada dhiibi karo bini'aadamka diidis wax ma bixi karto laakiin wixii oo lagu heshiiyay aabihii iyo hooyadii iyo kulli waa taagnaayeen ayaga iyo kulli waa laga tacaamulay annagana marqaatiyaalan ka ahayn hawshaas waxay ku dhamaatay hooy iyo aab waa cafiyeen wiilka
qaranka Soomaaliya gacantiisuna ku dhintay qarankoona ka dhintay